حالة كونفور قلبات قيبتي كوبات. طبعا سي aan u fahanna waxa ka socda koonfur galbeed waa inaan u noqonna December sanadkii 2018 madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa loo doortay madaxweynaha koonfur galbeed laakiin doorashadaas waxaa la socday qalalaaso iyo dhibaato dhiigna waa ku daatay Mukhtaar Robow oo haatan wasiirka ah federaalkana waa la soo xiray marka bomkan hadda koonfur galbeed ka qarxay markaas ay saacadiisa bilaabatay mar hore qarxay lahaa kadib isbedelkii xugun madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu xukunka yimid laakiin dawladda federaalka ayada bomkani ku fariisatay si uusan u qarxin waxa yeelay waxay waday qorshe ah in la mideeyo doorashooyinka federaalka hase yeeshee kala aragti duwanaanshahan marka haatan jira waa laba qole labada qole marka ayaga iskood u soo haya waana xugun qolo walba xugun ay rabtaa laakiin qolo walba meel ay dabada kula jirtaa qolada Cabdicasiis Lafta Gareen waxay dabada kula jirtaa Ethiopia Puntland iyo Jubaland ما أها يعني إن إثيوبيا بنتلاند جبلان أي وطن Cabdicasiis Lafta Gareen دنتيسا قشة يسقوا عربا حقوق إنه جوج مركا عد الله عد كلمة وكهلايا وقرب سنة قوليها كسو هرجة وزير هذا حسن إلاي إيو تيم كيسة يا وزير مدحنا فرن جامع iyo iyo aadan madoobe iyana federaalka dabada kula jiraan okay marka halkee la kala joogaa marka dabcan doodan koonfur galbeed weligeed waa ka taagnay danaheena intay jiraan danaheena ma Puntland iyo maamuladan kale jiraan iyo Jubaland iyo ama goboladan koonfurta labada dhinacna way kala yihiin goboladan koonfurta maayigana waa looga hadlaa meelaha qaar dadka reer koonfurkana mayga xitaa fanaaniintooda ku hees goboladan kale markay ay tagaan reer koonfur galbeedna af mayga inay ku hadlaan iyaba ka cabsadaan hoos ay u hadlaan yani si meesha loo joogay iyo meesha marka siyaasad ahaan ma dadkaan isku dhex jirnaan xignaa mise halkaas doodaas way ka dhex taagan tahay hase yeeshee Cabdicasiis Lafta Gareen iyo ama koonfur galbeed iyo Jubaland isku mid ma aha maamulada وصدح نوع معاملة الصومالية كجرا كو وكوا بنتلاند أو سماي سنتي كدب أنت أدب لوجك ليلين دولة فدرالك سنة كلا بدكم ويكون رئيس جوبلاند ودولة فدرالك أيكو قصبناتي دولة فدرالك مسمينين ويكون قصبناتي إلى هذا ويكون قصبناتي إيو صدح هذا معامل قبلات ودولة فدرالك أي سمايسي وكونفور قلبات hirshabeelle iyo galmudug saddexdan mar walba waxay ku qasban yihiin dawladda federaalka inay la joogaan maxaa yeelay dawladda sameysay taakulayn halkaas ay ka helaan ciidanka joogana badi dawladda federaalka ayaa laga taakulaya hase yeeshee Cabdicasiis Lafta Gareen bilihii la soo dhaafo waxaa muuqata ciidan uu sameynayay siyaasad ahaanna waxay ishayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax kalena iskuma haynina koonfur galbeed iyo waxa ka imaanaya iyo mas'uuliyiintiisa maadaama aan xisbigii ku xigeen ka noqday aan isla shaqeynayna aan gacanta ii soo gali iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo saliid macsana u marsanay yani meesha ugu weyn oo isku hayaan dadkan intaas ugu badnayd horta ninkan ma rabin in koonfur galbeed lala gacmaysto boqolkiiba boqol aan kula shaqeeyo boqolkiiba boqol ila shaqeeyahay horena waa idinkugu sheegay hogaamiye kooxeedyadii xamar iyo agaarkeeda waa laga saaray laakiin daafaha lagama saarin haddaad maqashid madaxweyne maamul goboleed waa hogaamiye kooxeed dadban wuxuu rabaa inuu baarlamaan soo qorto wuxuu rabaa inay wax walba gacanta ugu jiraan qolyahan kalena waxay rabaan in arrintaas ay ka madax banaanaadaan oo shacabka xildhibaanada ay soo doortaan xildhibaanada markay iyaga haday rabaan teendada isugu tagaan ciday rabaan ha doorteen laakiin horta xildhibaanada inuu shacabka dhanka shacabka laga soo doorto saasay rabaan marka
cabdicasiis lafta gareen baydhabo wuxuu ku haystaa marka ciidan waa diyaar garoobay etoobiyaankana wuxuu ka helayaa garab cabdicasiis lafta gareen taxaalufkii madaxweynaha ka dhigay waxaa ahayd taxaaluf federaalka ee etoobiya ah etoobiyadii wuu haystaa etoobiyada heer intee la eg bay sidii jubbaland ay kenya intay heerka ay kenya jubbaland u joogtay miyay u joogayaan mise haddii laga tambata way ka guranayaan waan arki doonaa oo shacab iyo dad hubaysan hadday soo galaan ma isu qaawin doonaan waa arki doonaa maxaa yeelay jubbaland waad ogtihiin markii bilbilowgii mar waxay jirta xitaa 2010 bilowgii 2013 ma ahayd mise 2012 mar waxay jirta dee laga adkaaday axmed madoobe oo xarada amisom lagu shubay aftiin baasti ay ka adkaadeen amisom kenyaanka banaanka ay soo istaageen banaanka ay soo dhigeen waa u hiiliyeen waana maaragtay magaaladana way u qabteen marka meeshaas inay la gaarayaan ilama ah etoobiyaanka hase yeeshee wixii sanad ah wixii hub ah wixii istiraatiijiyad ah wixii hooska taageer ah way la wadayaan marka mudaxilaadka marka madaxweynaha inta ka dhiban haddii nimankan is abaabulaya ciidankan kasoo horjeeda cabdicasiis lafta gareen horta waa ciidan qabali ah oona reer koonfur galbeed ah badbaadada koonfur galbeed ay la baxeen weli ma hayno ciidan federaal oo leh waxaan ku duulaynaa cabdicasiis lafta gareen waa ciidan madani ah oo qabiil ah oo isaga kasoo horjeeda waana dhibaatadii bilaabatay markii xukunka loo dhiibaayay ee dhibaatadan bilaabatay marka ma laga adkaan doonaa way adag tahay in laga adkaado cabdicasiis lafta gareen oo magaalada baydhabo inta loogu gala horta backup badan ma haysto aan etoobiyaankaas ahayn supply rootkiisa yani wadada ay ugu imaanayaan raashinka iyo hubka iyo gurmadkana waa etoobiyaankaas bas ah etoobiyaankaas haddii laga jara isagana saasuu ku daayay marka haddii 15 May la gaaro marka oo cabdicasiis lafta gareenna isku caana horta cabdicasiis lafta gareen hadduu mar isku caana shuba waa madaxweyne haddaba waa kusimo madaxweyne maxaa yeelay waqtigiisa u dhamaaday laakiin ilaa madaxweyne kale laga dooranayo qofka isaga madaxweyne ah haddii marka mar labaad la doorto uu maaragtay isku caana shuba horta isaga madaxweyne ah wixii laga garab fura waa fawdo laakiin haddii laga gaaro isku caana shubi waaya isagana saasuu ku fashilmay qaybta labaad aan isugu imaanaynaa marka laakiin haddii laga gaaro isku caana shubi waaya isagana saasuu ku fashilmay qaybta labaad aan isugu imaanaynaa marka